mas-uuliyiinta xisbiyada Somaliland ee gobolka Togdheer iyo waliba culimada diinka gobolkaasi ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Burco iyo guud ahaan gobolka Togdheer ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida. wariye Jaamac Saleebaan Cumar ayaa warbixintan eegaya. kulan ay isugu yimaadeen culimada gobolka Togdheer iyo madaxda saddexda xisbi qaran ee Somaliland ucid kulmiye wadani ee gobolka Togdheer ayaa waxay bulshada gobolkaasi ugu baaqeen inay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta nabadgelyada gobolka. haddii nabadgelyo la waayo madaxweyne shaqeynayana ma jiro, xisbi shaqadiisii gudanayana ma jiro. marka waxaanu si guud u wada leenahay bulshada reer Somaliland gaar ahaan kuwa reer gobolka Togdheer wax kasta ammaanka laga horeysiiyo. waxaan ugu baaqaynaa bulshooyinka reer Somaliland iyo gobolka Togdheer ee aanu joogno labadaba inay ilaashadaan nabadgelyadooda qaaliga ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nagu manaystay caalamka iyo wadamada aynu dariskana helay nagu majeertaan inaynu ku faraadayno oo runtii aynu ku qanacno wixii Ilaahay qadaro ee cidii aynu igmanina ay soo saarto baanka ay soo saarto oo dadku ay xakameeyaan dhibaatooyinkii dhacay iyo dadkii dhintay iyo dadkii waxyeeladu soo gaadhayna kuwii dhintana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto, kuwii waxyeeladu soo gaadhayna Ilaahay shaafiyo, ehelkoodiina waanu ka tacsiinaa Ilaahay samir iyo iimaan inuu ka siiyo. dadweynaha reer Somaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan kula dardaarmaynaa in nabadda la ilaaliyo. nabaddu innaga ay dan inoo tahay, nabaddu waa taynu ku noolahay, waa taynu habeen iyo maalinba ku soconayno, waa taynu ku shaqaysanayno. qolada komishanka qaranka waxaan kula dardaarmaynaa in cadaaladda sugtaan oo cabatinka sugtaan oo qof waliba wixii uu leeyahay si transparency ah u cadeysaan. waa fariin midaysan iyo talo midaysan oo loo jeedinayo dhammaan bulshooyinka Somaliland. waxaana insha Allah ta'ala ku bishaaraysataan sidii wax dambe aanay u dhici lahayn ayaa gacanta la isla qabsaday. si gaar ah waxaan fariin u farayaa xisbiyada qaranka oo maanta dadka miidiyaha laga dhageysanaya ay yihiin kelmadooda inay aad iyo aad u ilaaliyaan. kelmadda ka soo baxaysa ee saameynta bulshada ku yeelanaysa ee dhalinyaradu dhagta ay u taagayso inay aad iyo aad uga digtoonaadaan. natiijada soo baxdana inta ay doorashadu socotay waa la soconnay, kalsooni baa lagu qabay. insha Allah ta'ala kalsoonidaana inay sii wadaan oo qaranka iyo shacabka iyo dadkaba loo turo. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaain Axmed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tacsi u diray eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay mudaharaadada ee taageerayaasha xisbiga wadani ka sameeyeen gobolada Togdheer iyo Maroodijeex. nabadgelyadu waa hantida quraannu leenahay, cid walba u baahan tahay. dhalinyarada gaar ahaan nabadgelyada ha la ilaaliyo. waxaan kaloo tacsiyadeynayaa shaqaaqadii dadkii nagaga geeriyooday. waxaan leenahay Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo, ehelkooduna samir iyo iimaan ka siiyo, intii ku dhaawacantana Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo. waxaan kaloo tacsiyadeynayaa oday weyn oo raggii odayaasha ahaa ee taariikhda dalka soo joogay ka mid ah Axmed Yaasiin Gabaxadi. waxaan leenahay Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo. dhammaan qoyska reer Gabaxadina oo qoys maxaan ku dhahdaa dadkii halganka ahaana waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo. Jaamac Saleebaan Cumar iyo Cabdilaahi Jaamac TV-ga caalamiga SBC magaalada Burco.